وسوسايتي عسكر فيلس اسبقات بدا أحلى عدل بقاتي وأحد خطوبتي أطلع بصدي أقودك أتخيل بالبقات أسيدي اسبقات بدا أحلى عدل بقاتي وأحد خطوبتي أطلع بصدي أقودك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديات بن السلام يا جودهان بالشو أنت كحنا بركنون كان كله هاي فيسبوك إذا هان تيم بملك سوا دافع الدنيا قد دعوانا سنة والحمد لله هاي مالينكو هايدي وعنادا هبينكو هايدي وعنادا وقت كستوا عيد هاي بعد كسلام يا وحنا كهلا حالات ير أو it's so بسيط ويسكفض هاي وحمار لو وين ما هدي أن للسياسيين وحلحلين كريه وين ما هدي أن للمنافقين وحشيدان كأديجي وي لكن أنا شعلها هنا المدة بيامية حقيقة يرون سيدة هاي أنت أقول كيا أما عن نوعان أقصون هاي إن واحد جرتا ويل ضلني رأى إلهي عافمت سريعنا هسيو إلهي وحنا قبرية إنه نقضو متسوق عواي سقو قفهان تسيق نمدي سباعي ومدور وصحافة ورستو لكن intii uu isaguba dhakhtarka ku jiray dad badan oo munaafiqiina oo abwaaniin leh oo dad haldoora leh oo cuqaal leh oo odayaal leh oo dad dhaqanka iyo allahumma salli ala muhammad la rabayba dadka isku soo jiidiyay inay noqdaan ayaa waxa ay siday uga fal celinayaan ama sida ay uga hadlayaan ba ay noqotay mid qariban oo aan ahayn wax meesha ku jira ama aan ahayn wax uu qofka ama aqliga saliimka uu qaadan karo waxaa dhacday naxdin leh oo farxumadeeda leh oo ceebteeda leh oo cid waliba ay ka naxday cid walibana ay ka falcelisay cid walibana sidii ugu qumanayd ee ugu toosnayd
ay uga hadashay marka laga reebo dad iyagu dana siyaasadeed iyo afkaar gaara oo ay doonayaan inay ummadda ama dadkaba ay u soo gudbiyaan ka leh dadkaasi waa dad mujrimiina oo doonaya ummad wada dhalatay oo allahumma salli calaa maxamed jiiraan oo jaara oo wada degan inay iska hor keenaan laakiin u suurtoomayso intaan anagu noolahay ama baanu aragtidayda iyo fikirkaygu uu xor yahay ee aanu qofna u xidhnayn shakhsi baan ahay oo uma xidhni qolo umana xidhni qof siyaasi ah laakiin wuxuuba hadday siyaasad noqdaan xaq baanu leeyahay wax allaale wixii arrin siyaasiya inaan ka jawaabo ama aan ka hadlo ama afkaartayda aan u gudbiyo hadba intii barkulanka aan facebook ku leeyahay aanu ku xidhino arrintan siyaasiga noqotay ee wiilkan dhalinyarada ah ilaahay caafimaad sareecana ha siiya ee nabarada gardaradii ay soo gaadheen iyo siday u soo gaadheen labadaba inaan ummadda u bayaamiyo ama aan u futiimiyo ayaan anigu isku soo xilqaamay wixii dhacay foolxumadeeda ceebteeda adyadeeda iyo wax allaala wixii uu dhaqanku ka qabo labadaba waajibaadkeedii waa loo maray laakiinse iimaan baa lagu yeelan waayey oo dad dana siyaasadeed oo dhagar qabayaala welibana doonaya cidda maanta cuqaasha hadlaysa iyo dadka hadlayaaba iyagaa dalkan madaxtinimo ka rabee dadka eedda iyo ceebta la saaraya midna shaqa iyo shuqultoona kuma leh dalkana madaxweyne kama rabaan ninka doonaya maanta inuu madaxweyne ka noqdo ama beesha muuse cabdalle ee habriyoonis ka tirsan ayaan anigu erey ama laba kelmadood kaliyaata odhanaya waardad wax waa kala gaari jireen weligeedbana ummadda deelqaad iyo adyadibu way ku soo kala dhacaysay waana laga soo gudbi jiray waana laga soo kaban jiray maaha iishiyo qof kasta oo bilaaadmiyo ducaa ku waajiba inuu inankaa yar ee allahuma salli calaa maxamed wax gaareen loo wada duceeyo in inankaa yar wax ku dhaceen inuu ilaahay caafimaad sareecana siiyo uu xogiisa mar dambe ugu istaago uu xooggiisa iyo xoogmaalkiisaba uu ku soo noqdo waanu jecel lahay waanu waxaan idhaahda garan maayo ducayntaa ka badan ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo ilaahay cawlna khayr qabta ha ugu bedelo xaaladda uu maanta uu ku jiro ee uu kaga sugan yahay waa cisbitaal joog inanka yare cisbitaal jooga caawa ee maanta isagu koomada ku jira in la siyaasadeeyo arrinkiisa oo cid gaara shaambad lagu dhufto oo reer gaara shaambad lagu dhufto oo la idhaahdo waxaasay sameeyeenna waa gaf iyo meelka dhac weyn oo iyadu qudheedu u baahan in laga wada hadlo war marka awaankii iyo kii haldoorkaa iyo kii facebooka dhex cararayay iyo kii doonaya inuu ummadda wax gaarsiiyaaba oo arrinkan issue gaara uu u yeelay dee xaq baan u leenahay annaguna inaanu ka hadalno wixii run ee uu jirana ummadda aan u sheegno waxaa jirta wiil yar oo banjarla oo xildhibaan axmed cabdi nuur gijaandhe ay xildhibaanku ha qaldamo khaladkiisa anagu kuma garab taagnin kumana garab siinno inuu ummadda ku qaldamo laakiinse waajib wixii uu lahaa iyo wixii uu xaq u lahaa iyo wixii loo soo doortay labada midna ninka tegay maaha wax waa dhaceen inankaa yar iyo isagu waa jaafajarqeen weliba se laakiin runta iyo kelmadda odhaahdeedu waxa ay wuxuunbaa ka odhan karaa wiilka maanta dhakhtarka yaala hadduu run sheegana adduunyadiisa iyo macaamilkiisa u wanaagsantay hadduu been sheegana haddii ilaahay caafimaad sareecana siiyo haddii ilaahay isaga caafimaad sareecana siiyana wixii isagii xildhibaanka kala gaaray cid wax ka sheegi kartaa ma jirto xildhibaankuna xaalad uu ka hadli karo ama uu erey ka odhan karo ama uu dee inta uu saxaafad soo horfiso oo erey ka dhiibi karo ma aha khaladkeeda iyo foolxumadeeda iyo dulqaad la-aanteedaba annagaa xildhibaankayga guudka u saarnay cidna kalama tashanayo hadalka aanan ku odhanayo wixii dhex maray xildhibaanka iyo wiilka maanta dhaawac ah ilaahay caafimaad sareecana ha siiye ee kala gaadhay labadooda oo quraata ilaaha caalamka abuuray ee ummaddana abuuray uunbaa u dhexa cid kaloo wax ka odhan kartaana ma jirto xildhibaankana inuu ka hadlo maanta maadaama arrinkii la siyaasadeeyey wax macquula ama erey laga odhan kara ma aha laakiin haddii aan ku noqdo waxaa ka hadlay cuqaashii xildhibaanka waxay qaateen foolxumadii arrinka waxay qaateen dhibkii dhacay waxay qaateen wax allaala iyo wixii inankaa yar ku yimid oo xitaa bargooyadii si sharaf iyo karaamo leh oo ay ummaddu u kala qaadan jirtay ugu gudbiyeen ciddii dhibana ahayd
xildhibaanku waajibkiisii iyo wixii isaga saarnaa ee qofnimo iyo damirnimo iyo dadnimo u saarnaaba wuu gutayo cid allaale ciddii geysatay falkii dhacayba wuxuu ku wareejiyey booliiska somaliland awlaadiisii iyo kuwa adeerka u ahaa iyo cid allaale ciddii falkaa uu la xidhiidhiba aayar buu xabsiga ku ururshay cuqaashii hadashay waa loo jawaabo war caafimaad qabaa loogu jawaabo oo aan war xume ka dhex faa'iidaysan karin laakiinse way u cuntumi weyday waxay doonayaan dee ilaaha caalamka abuuro inbay ka heli karayaane wax deelqaafa ama adiyada oo ay annaga naga heli karaan baan jirin haddii ay beel ahaan noqoto wixii waajibkana loogu lahaa waa gudanay inankaa yar ee xanuunsanaya ee dhibkii loo geystayna waa qaadanay foolxumadii iyo ceebtii iyo dhibkii ku dhacayna waa qaadanay wax allaala wixii ka yimaadana diyaar baanu u nahay meel walbana waanu la soo istaagnay cuqaashina waa hadashay laakiinse warka dhiilada leh ee kii abwaaniinta iyo dadka mudakarka oo ah beesha iyada uu dhibku gaadhayba ka hadlayay iyo intay sii sheegayeenba waxaa ka sii xunba intay cuqaashoodii dadkii maanta haldoorka u ahaay arrinkaas u xil saarnaaba ay ummadda la hor imanayaan ee baraha bulshada ay soo gaadhsiiyeen wixii baraha bulshada ka dhacay ee hor yimid wax la adkaysan karo iyo wax ummad la iskaga hor keeni karo midnaba ma ahaba dee dadka weligeed bay kala gaari jirtay dhib weligeed buu kala gaari jiray adyad weligeed bay kala gaadi jirtay dhibaato wax allaala wixii dhacay waa la qaatay foolxumadeeda iyo wanaaggeedana duuduub baa lagu liqay maadaama meesha ay xasanad xildhibaanu taalo laakiin ninka maanta doonaya inuu gijaandhay intuu saxaafadda soo hor fadhiisto uu yidhaahdo warkii iyo wixii dhacay baan ka jawaabaya runteeda iyo beenteeda war waxaanu qaadanay inaad tidhaahdaan xildhibaan baa 3,000 oo somalilan shilina oo wax ka yarba nus doolarka aad sheegaysaanba ah ku fadeexadaysaan oo ku aflagaadisaan waanu liqdanay dhibta dhacday darteed iyo maadaama xasanad xildhibaan meesha taalo xildhibaan feertamayna oo gacan qaadayna ninka haya ama ummadda u soo bandhigaya ama sheegayo dee aday ku taalaa dhibku arrinka xildhibaanka loo geystay oo keliya tuu ka dhacaya wiilkaa wixii gaadhay adigu aabbaa tahay anigu aabbaan ahay oo liibaan baan ahay waxa anigu maanta wiil yaroo wiilkayga la facahay aniga ii geysto dulqaadkeeda haddii layga waayo wiilkaygu waajibkiisuu ku maraya wax allaala iyo wixii uu doonana wuu samayn karayaa wiilkaa yar dhibka gaadhay anigoo aan ku faraxsanayn haddana waxaa dilay wiil aabbihii sharafkiisa iyo karaamadiisa in lagu afciliyo toona aan ogolayn waana tuug samayn laa wiil kasta oo uu aabba dhalay haddii run laysu sheegayo haddiise la beeleeyey oo arrinkii la ballaadhiyey saxaafaddana uu ka bixi laayahay baraha bulshadana uu ka dhammaan laayahay ceeb iyo adyad aan cidilaanin lahayna la saarayo warta taasi waa khalad qofka maanta madaxweyne doonaya ee ku tartamaya ee aanu garabkiisa taagnayn ee aanu la jeclayn iyo beeshiisii haddii ay kala socdaan war maanta xildhibaan gajaandhe sadbursiimo mooye arrinkaa haddii la siyaasadeeyey wax allaala iyo wax kaga dhacay iyo wax allaala iyo wax kaga baabi'i doonaa midnaba ma jirto waxay noqotay inay xildhibaana ka jawaabaan oo ay arrinkaa isagaa baraha bulshada soo geliyaan oo uu xildhibaan xoog ugu horreeya waxay noqotay inay abwaanin ka hadlaan oo uu ugu horreeyo siciid maxamuud gahayr saaxiib baan nahay aad iyo aad baan u salaamaya waa nin xaqudirara waa nin maan jecelahay laakiinse roolka iyo iishiyoga uu ka ciyaaray xaaladda hadda jirta ee wiilkaa yara dhakhtarka yaalla iyo arrinka xildhibaankuba mid isaga nusqaan ku ah weeye mid ummaddana nusqaan ku ah weeye sidii wax u tabinayna ma aha ama sidii wax u qorayna ma aha sidii qof maanta u doodaya qof dulman war qofkaa wixii loo geystay dadkii u geystay way qaateen cuqaashoodii way qaateen beeshii uu ka dhashay iyadoo oo allahuma salli calaa maxamed ee aanu qofna qof walba sidiisa uu isku xixdaraamina wixii dhacay waa laga wada xumaaday xumaanteedase
waxa ka sii xun ninka doonaya inuu caawa sii boombooniyo waxa ka sii xun ninka caawa doonaya inuu fidmo kale ka sii abuuro dee almidan waasa waxba yaan la iswareerin sidii allaale iyo sidii uu qof waliba uu ku qanci lahaa oo uu ku raali noqon lahaa xildhibaankaasi waa sameeyey cidkii dhibka geysatay waa la soo xiray ninka cuqaasha waxgaradka ah arrinkaa umadi ay u soo xil saaratay ka hadlaaya intuu ummadda soo hor istaagay yidhi ninkii sharci dejinta u sarreeyey ama qoladii sharci dejinta ka mid ahaayo isagoo xildhibaan gijaandhe duraya ayaa sharciga gacantiisa ku samaystay annaguna sharciga gacanteedaan ku samaynanaa war adigu sharciga aad gacantaada ku riminayso ama aad ku samaynayso iyo waxa aad sameynaysaba almidan waasac wixii waajibka ahaa hadday mid dhaqan noqoto iyo hadday mid siyaasiyeed noqoto markii aad labada dhanba u dhigteenba hadda arrinku arrin dhaqan uu noqon lahaa laba reeroo wax kala gaadhay ama laba qof oo wax kala gaadhay laysu dayn laana halkaa uu maanta u taagan yahay ma soo gaadheen haddii se ay noqoto in la soo gaadhsiiyo oo ay noqoto intay cuqaale soo hadashay inay tiraahdo annagaa sharciga gacanteeda ku fulinayna war sharciga gacantiina ku fushanaysaan iyo wixii aad samaynaysaan iyo wixii aad doonaysaan inaad qabataanba cidna ha la socodsiinine almidan waasa wax allaala wixii idinka fulayaa ilaahayow haddii aan dab shidayo aniga haygaga tegin laakiinse ninkaa dab shidayo runtaan u sheegaya waxaan leeyahay wax allaala iyo wixii aad qabanayso almidan waasac wadadu waa kuu furan tahay sharciyadda aad leedahay anaga maanta gacanteeda ku fushanayana adigaa doonaya in somalilan aad madaxweyne ka noqotee maanta markaad tiraahda adiga oo aan madaxweyne ahayn xil kale inta kugu waajibtaba ay tahay dhaqan inaad tiraa anigaa sharciga gacanteeda ku fulinaya haddii uu maanta inanka adeerka u tahay madaxweyne uu noqdana maxaa aad ummadda aad ku samayn lahayd maxaa doonaysa inaad adigu aad ummadda dhexdeeda aad ama ummadda aad la hor timaado ninka maanta la si sharci darro abaan anigu sharciga gacanteeda aan ugu fashanayaa muxuu ummadda kaga doonayaa roorta madaxweynenimo waa haddii arrin kale siyaasadeedii midda kale dhaqanka yaan laga tegin dadnimada yaan laga tegin wada inan iyo abtigii baan nahay waanu isdhallay muse cabdalle iyo axmed cabdalle iska daa axmed cabdalloo keliya haashtin oo dhan waa tafiir garxajis raacsan war ma inan yar oo ay adyad lagu dilay oo khalad lagu dilay oo khaladkiisii la qaatay oo wax allaalay wixii lagu sameeyeyba madaxa laydii saartay ayaa caawa ka gami laadiin oo maalin walba baraha bulshada soo gelinaysaan war dhiila lehe oo aad doonaysa si aad beel ku duulaysaan war haddii uu gajaandha idinka muuqday oo aad ka ag aragteen muuse bixi agtiisa war dee muuse bixi iyo gajaandha may wada dhalane gajaandha waa xildhibaan araba arabna soo doortay wax allaale wixii uu geystina diyaar baa laydin leeyahay waajibkeediina waa laga maray tu dhaqan iyo tu tolnimoba haddaa intaa ku qanci weydeen wax allaala iyo wixii caawa ku qancaysaan iyo wax allaala iyo wixii aad doonaysaan inaad samaysaanna baraha bulshada idinkooma soo marin tu maakhid sameeya laakiin anagu mar walba waxaan idin leenahay war wixii dhacay waa foolxumo arrinkaa inankaa yar ku yimid ilaahayba caawatiisii kama dhigee xitaa inay nimanka qaarkood ama shakhsiyaadka qaarkood ugu afka dheer lee baraha bulshada isticmaala ay dhahdaan inankii yaraabaa geeriyooday war geeridan inankii yar ku dadejinaysaan ilaahayba tiisii kama dhigine afkiinana ku noqon maaye wax isku fala oo xishooda oo haddii laydinku xishoodo oo laydinku waajiye oo iyo wixii aad tabasho iyo arrinkaa wixii dhacayba aad ka qabtaan diyaar laydinka yahay in laydinka caafiyo waar ma aha waxay laba beelood iska daayeen laba qof ay ku kala dhintaan laakiin foolxumadiisa iyo sii wadwadkiisu waxa u haysataan inay xildhibaan gajaandhe intaa in la kaga dhacaysee wax u saa'ida mooye wax allaala iyo wax kaga nusqaamaya ma jiraan haddaad gajaandhana ka ag aragteenun muuse bixi garabkiisa waxaan idiin sheegaynaa oo aan idin leenahay oo aad islahaydeen waa ka faa'iidaysanaysaan war ninka araba ee maanta arrinkaa dhacay ee yimid adyadiisii foolxumadiisa qaatay waxa ula timaadaan inta aad iska dhigtaan oo xitaa
aydu wanaagii iyo xumihiiba aydu isla meel dhigtaan aydu xumaha u soo qaateen maanaan garan mana doonayno waxaa codnigaga doonaysaanna garanba mayne haddaa u arkayseen in xildhibaan gajaandhe caawa oo aad muuse biixi agtiisa ka aragteen iyo xisbiga kulmiya reer wadani inta ugu badan oo anigu aan wadani aan ka mid ahaaba ay noqotayba in adyadii afxumo loogu geysto beel aan wax allaala iyo waxa ay goysatay aanay jirin oo ah xildhibaanadiinu iyo allahumma salli calaa maxamed dadkiinu iyo abwaanadiinuba ay baraha bulshada la taagan yihiin fadeexad aan meel la gaarsiisnayn xildhibaan xoog baa ka hadlayay oo lahaa meherada banjarlaha ah iyo supermarketka waxay iska soo horjeedaan xildhibaan gajaandhe war supermarketkii xildhibaan gajaandhe iyo meherada waxay ka dhaceenba hadday soo wada hor joogaan maxaa u diiday inanka yar aabihii uu la jaafaajirnay inay inanka yar meherada oo hayaa uu ka falceliyo ilaan aabban nahay tii aabbanimona waa ka tagteen tii ehelnimona waa ka tagteen tii tolnimona cidhiidhi baa gelinaysaan laakiin isbarqabta oo wax isku fala oo waxaana way dhacaan weligeed bay ummadda wax kala gaari jirin inankaa yarna ilaahay caawatiisii kama dhigo habaarkana idinku hala hor soconina ilaahayna qacantaa maanta gaadhay iyo dhibkaa maanta gaadhay waxaan uga rajaynayaa in cawinac khayr qaba uu ugu bedelo oo ilaahay caafimaadkiisa oo taama aynu dib u aragno waa dhibane sariir saaran kuuma ku jira gacan ka xaq darani ay dishay sababta ay u dishayse in la raadiyay ahayde in haddii bahalkii ama arrinkiiba la beelaynayo ama la siyaasadaynayo labadaba cidda wax ku waayaysa waa idinka annaga ma aha annagu madaxweyne ma doonayno qarankana kama sharaxnin cidda wax ka sharaxanay maanta wax doonaysa iyo in la doortoba doonaysaaba haddii aan xitaa wadarta guud aan tago waa garxaj sii arabna weligood iyo allahoodba dhibi way soo kala gaari jirtay qacmaha geel jira hoos unbaa loo dhaqi jiray wax allaale iyo xumadda soo dhex gaari jiray ma jiraane haddaa ka dhex arkaysaan gajaandhe inuu heego hormood ka yahay wardee xildhibaan gajaandhe waa xildhibaan dadkii soo doortayba aanay weli ka falcelin wuxuu u qabtay iyo wuxuu isagu uu sameeyey 15 sanatoona aanay la xisaabtamin wax allaala wixii ka dhacay ee deelqaafee gafana ka jawaab celiyey laakiin haddaa issue siyaasadeed ka dhigteen haddaa issue dhibaato wada aa ka dhigteen haddaa arrinkii fool xumayseen fool xumadeeda iyo quruxdeedaba idinka uunba idinku kooban tahay wax allaala wax gajaandhe iyo beeshiisa ka soo gaadhayaa toona ma jirto wax allaala iyo wax anigaygan hadlaya xitaa iga soo gaadhayaa toona ma jirto ilaahay caafimaad tareecana mar walba ha siiyaan leeyahay inan kaa yaree dhibku gaadhay dhibkuse wuxuu ku gaadhay in hoos loo dayo isaguna markuu caafimaado la waraysto ayay ahayde caaqil isaguba aan nabadna ka talinayn cuqaalna aan horumadu noqon karayn intaa mikrofon u soo dhiibtaan iyo abwaan isaguba iska sii degdegaya hadduu xaaladda sii kala fogeeyo waar waxaa ka heshaan baa leediide almiidaan waasac bargooyadiina waa haysataan wiilkana ilaahay ha caafiyo dhib allaala iyo wixii waxaa ka imaada foolxumadeeda iyo quruxdeedana qaadanay annaga duuduub ku qaadanay arrinkaa foolxumadiisa iyo adyadiisa iyo ku degdegiisa iyo inuu ka yimidba qof mas-uul ah oo aan laga filanaynin laakiin qofka mas-uulka ee aan laga filanaynin ha ku degdegina oo wax aanu geyn ha ka qorina wuxuu xaq u leeyahay ha la siiyo wuxuu xaq loogu leeyahayna annagaan ka baryeyn oo aan la tashanayn oo idla wadaagayna haddii ay noqoto caawa inan yar oo qacanka xaqdarna ay dishay xaqdarradiisiina la qaatay dhibkiisiina la qaatay wax allaala iyo wixii lagu sameeyeyna la rabo in lagu shaafiyo qof allaala iyo qoyskii uu ka dhashaba in la shaafiyo haddii ay noqoto arrinkaa in issue siyaasadeed la geliyo warta arrinka siyaasi hadduu noqdo wiilka iyo qoyskiisiina waxba uguma fillidin qoladiina hadlaysaana wax allaala wax wanaag oo ka hadlaysaan ma jirteen dhibkiisa iyo xumihiisa labadaba annaga tii aad nala jeclaataan diyaar baanu nahay waxaanan jecelahay arrinkaa haddii la doonayo wanaag iyo haddii la doonayo xumaan labadaba tii la doonayo dulqaadkeedanu leenahay dalka madaxweyne kama rabno
annagu ma nihin musharaxiinta maanta madaxweynaha u tartamaya haddii arrin siyaasadeed la isku fool xumaynayana idinku fool xumida malaha waxaad la rabteen cid kale idinkaa idin raacday idinkaa ceeboobay idinkaa doonaya maanta idinka oo aan wiilkaa yarna dantiisa eegaynin wixii ku dhacayna waa la qaatay wax allaala iyo wixii uu ku soo kordhana diyaar baa looyo madaxaasu saaran yahay ilaahay caafimaad sanaacan ha siiyo laakiinse midh baan leeyahay aan kaga baxayo ama aan kusoo gonaanaday hadalkayga haddaan caadifad hadlay xaq baanu leeyahay inaan caadifad hadlo sababtoo ah dee beel baan ka dhasho dad baan ka dhashay mana la jecli xumo aanay lahayn hore haddaan u dhegaysan jirina lagama yaabo caawa laga bilaabo anigu inaan dhegaysto foolxumo aanan lahayn war arab foolxumo ma leh ceebna ma leh adiyaddaa ka dhacdayna way qaateen wax allaala iyo wixii loola maslaxada amaba arrinkaa lagu soo gabagabaynayena diyaar bay leeyihin haddaa xumaysaana falilaahi alxamdu haddaa wanaajisaana falilaahi alxamdu labadaba annagaa kule dadka maangaabka ah ee si yar hadalka loo gelinaya laleeyahay xildhibaanba inay yaroo banjarla ah 3,000 somalilan shilla ku dilina war been baa lagaa yidhi 3,000 iyo wixii xildhibaanka iyo inanka yar ka dhex dhacay qof ogi ma jirto qof media la soo fadhiisanayaana ma jirto inankaa yar in xildhibaanka dartii loo dilay mooyaane wax allaala iyo wax kale oo aynu ka wada hadli karno oo aynu isu sheegnaa ma jirto dadkii dhibka geystina saldhigay ku jirtaan sharciyadda hadday noqoto qof kasta oo gacan qaada ama dhib geysta xildhibaanku intuu baangad qaatay dee ilma yar kumuu dhufan laakiin xildhibaanka inankiisa ilma yar baangad ku dhuftay haddaad leedihiin xildhibaanku ha isku soo xidho dee wuxuu isku xidho oo xukun qabanaya iyo sharciyad soo xidhaysa midna ma jirto laakiin dadkii dhibka geystay waa xidhan yihiin wiilkii wax gaadhayna dhakhtar ku yaalla ilaahay baan caafimaad sareecana ugu filanaa sharciyaddu hadday xukumaysana dee dadkaa dhibka geystay ayay xukumaysaan haddii la leeyahay sababteedu lahaayo gijaandho caawa loo baxsanay ama loo eryanayana dee taasi waa arrin siyaasiyo wixii sharcigu ka qabo ayaanu diyaar ku nahay wixii uu sharcigu ka qabana ayaanu ku go'naa qofna sharciga kama weyna qofka doonaya maanta inuu arrinka gijaandho iyo ilmaha yar ee ay dhibaatada ku dhacday ishii siyaasadeed ka dhigtawna adigay siyaasaddu kugula fulo xumaatay adigay siyaasaddu isu ka rogtay anigu wuxuu ma ka hadli jirin wax mucaarid ku ah xukuumadda hadda jirta laakiin ma yeelay wax sharaf xumo iyo karaamo xumo ku ah shakhsi mudakar oo ummadana hor joogay 15 sanadoodna u soo shaqaynayay inaan anigu maanta ceebtiisa dhageysto isagoo aniga adeeriya hadday noqoto in la kala adeer wanaagsanaado hadduu wiilkayga adiga kula culus yahay war wiilkayga wuxuu qaada wixii ku dhacay iyo wixii ku yimid iyo wixii uu qaatay waa qaadanay laakiin adiyad iyo afxumadu haddaad u aragtay inaad adigu kaliya ka hadli karto annaguba si badan iyo si quman labadaba waan kala hadlinaa ilaa haddana wanaagaan ku jirnaaye war ilmaha yar ee wax ku dhaceen ilaahay caafimaad sareecan ha siiyo ha loo duceeyo ceebtiisa iyo foolxumadiisana madaxaasaanu saaranay wixii intaa ka badan ee la raadinayo xataa sharciyadda ka soo tallaabisaan sharciga horeba waxaa uga tallaabay guddoomiyihii baarlamaanka oo ah wiilka beesha caawa dhibka loo geystay oo muuse cabdalla ah waa cabdiraxmaan ciro isagaa sharciyadda ka tallaabayo golaha dhexdiisa ku dagaalamay haddii xildhibaan dagaalamay iyo xildhibaan wax sameeyey kii ka afxumaa baa soo hadlo waa xoog oo si qabyaaladaysan oo caadifadaysan u hadlaayay wuxuu doonayay malaa gijaandha u jawaabee gijaandha kuu jawaabi maayo xoogo aniga idhigayso haddii adigu aad leedahay aniga gijaandha aniga magaalada bartigeeda ha igu yimaado ha igula dagaalama wuxuu kugula dagaalamay wax isugu keenaya midna ma jirtee inanka yar dhibkiisa waxba ha soo baritaarin adigu waxaa dadkaaga u qabatay kula tartan tanacnac baad ka hadashay waar nacnac iyo gijaandhe iyo mataan hoori iyo cabdiqaadir jirtay iyo ninka soo araba xildhibaaniba adeer annaga saasay galaash bay noo yihiin waxaad kala ereereeto iyo masiibaad arab dhex dhigaysaa midna ma yaalo arabna maanta waa ka koray hebel kumud waxaanu taaganahay waxaanu geysano inaanu si sharaf iyo karaamo leh dhibkii aanu geysano inaanu si sharaf iyo karaamo leh ummadda uga shaafino wax allaala wixii ceeb iyo afxumo iyo aadiyada ee socotana af lagu hadloo laysku difaaca waa nagu yaala adigu
ama 15 ka sanadoodba Somaliland inta uu golo wakiil jiray qofka ugu wanaagsanaaba ay dhibkooda gaarsiin waayeen been baad naftaada u sheegaysaa qabyaalad iyo caadifad aad hadlayso iyo TV-ga qabyaaladiisana ka soo dhax hadlaysaba waxaanu ku leenahay aayar caga dhigo haddii kale xildhibaanka jaandhe issue-kan mid aan ahayn xoogow waa ka xoog batay waa ka xaniya batay waa ka siyaasad batay waa ka dadnimo batay waana kaaga dhawaaday xukuumadda maanta jirtay iyo tii hore u jirtay waa ninka laba jeer noqday gudoomiyihii ololaha madaxweynaha ee gobolka Murudijeey saad doonaysaa maanta xajiin iyo adiyad aan meel la taagnayn inaad la soo fadhiisato inay yar baa la dilay inay wax yeelay war haddii wax la dilay iyo haddii wax la yeelay labadaba dad buu leeyahay waxba iyo hadalkii la tigin waxba yana si caadifad hadlin intaa wixii ka badanna dee almiidaan waa sacbaan leeyahay iyo haddii wanaag la doonayo xumaan haddii la doonayo war wiilka yare ilaahay waxaan ka barayaa inuu cafad saraxna siiyo arixun haddaan idhi waa gaf iyo wax shaydaaniga keenay mid wanaagsan haddaan idhina laba kalmadood ama hal kalmad baa ku noqonayaa oo waxay ummaddu ay tiri qof walba xaq buu u leeyahay ama xor buu yahay wixii uu qoray iyo wixii uu dhibaa waxaan si isku darayaa hadalkii waa dhameysliibaan oo arrinkaasi xildhibaanka jaandhe unbay hal seegtay iskala adigoo ummadda ha isku dirin warada jacaba igu tiri maxaa isku dirayaa wax allaala waxaa isku diri jiray been ha sheegin ma jirto cid dow maraysa xaajiba arrin baad ka tahay erey baa si kaa odhan lahaa ma doonay dood badanaa sii galo yaa qaatay waa xildhibaanka jaandhe wax allaala wuxuu ka hadlaya iyo wax allaala wuxuu ummadda la wadaagaya toona ma jirto annagaa kula caawa xildhibaanku waa xildhibaan qaran xasanad qaran buu sidaa waa mas-uul qaran maalintoona aanan ka calacalno aan dhibkoodiyo daaweynteeda baan isku qaadanay marka waxaa ayaa issue fara badan laga dhigay in yar baa kuuma ku jira inanka yar kuumada ku jira ilaahay caafimaad saraacana ha siiyo laakiinse intii arrin siyaasi dhacay war hablaha ayaga makaanka xabadda lagala dhacay ayaa weli alaanka nool oo joogo sarriyaala kamana hadalno jaleecna uma lihin ninka maanta doonaya inuu ummadan iyo dadkan buu hogaamiyo madaxweyne u noqdaana uma fadhino waxyaalaha qaar cod buu naga rabaaye ciil iyo afxumo iyo adyad nala soo taagay baryaha bulshada haddii ay sii faafto dee anagaba afbaan nagu yaalaa ilaa hadda waa isxakamaynaynaa weliba intaas sidaasaan wax la hadhnay haddii ayse sii socoto anugu kelimad dee aan idhun baa weli taagno almiidan waasa aad baan idin salaamayaa guud ahaantiin qof kasta oo barkulankan Facebook ku leeyahay aan ka wada xidhiidhnay waa ku mahadsantihiin muxuu yidhi kaasi kan life ayaa u cusub taariikh baanad ii lahayn aqoonsana waanad ii lahaynin laakiin
bal adigu profilkaygun dib u baadh ciddaan ahay adiga ogaan doona aad baa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu